munaasabadan oo ay ku qalin jebinayeen dufcaddii labaatanaad ee ka baxda jaamacadda ummadda ayaa maanta ka dhacday hoolka weyn ee Afasiyoni waxaana ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, gudoomiyaha gobolka Banaadir, wasiirada waxbarashada, caafimaadka, wasiir dowlaha arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya, xildhibaano, taliyayaasha ciidamada asluubta iyo cirka, gudoomiyaha jaamacadda ummadda, wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda Talyaaniga, safiiro, macallimiinta jaamacadda ummadda, waalidiin, arday iyo marti sharaf kale. kooxdan iyo waaberi ayaa munaasabada ku soo bandhigay heese ka turjumayay waxbarashada. gudoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Maxamed Axmed Jimcaale oo munaasabada hadal ka jeediyay ayaa dowladda federaalka ka codsaday in aysan ardaydan ku siideyn suuqa isla markaana dowladdu ay u abuurto shaqooyin. madaxweynaha waxaan caddaynaa markaas ay ka yihiin ilaahayna markaas uu nooga yahay inaan ardadaas soo garitaankoodan cadaalad u sameynay, imtixaanadooda cadaalad aan u sameynay, macallimiinta qaadashada cadaalad aan ka sameynay, oo macallimiintana macallin kastoo jaamacadda soo galaya aamirin macallin 7 qofood ayaa ku wareysanaysa interview kula qaadanaysa marka lagu qaado shahaadooyinka iyo khariidada marka lagu qaado si aan loo dhihin suuqa midooba lagu qaatay 7 qofood oo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cusmaan Yariisow ayaa sheegay in aan la soo koobi karin taariikhda ay leedahay jaamacadda ummadda, waxaana uu hambalyo u diray ardayda maanta ka qalin jebiyay jaamacadda ummadda. ayay dunida ku lahayd waxa maanta sharaf ah madaxweynihii ummadda Soomaaliyeed oo runtii ah madaxweynihii shacabka, madaxweynihii ummadda inuu maanta nala joogo jaamacaddii ummadda oo mar kale dib loo yagleelay haddana qalin jebinteedii aan ka marqaati kacayno. wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre ayaa isaguna sheegay in loo baahan yahay in ardayda ay ka mira dhaliyaan hadafkooda waxbarasho. bahda waxbarashada Soomaaliyeed waa markii aan qoriga soo jeedsanay intoodii fikirtay inay qalinka iyo siinka waxbarashada uusan naga damin ee hadda ku urursan 12 dalladood si doonaan baa kala weynaadaan oo soo saaray intaysan jaamacadda noogu imaanin dhalinta arkaysaan iyo kuwa kala badan. baadaas waxaan rabaa inaan madaxweyne hortaada aan uga mahad celino. madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ardayda ugu hambalyeeyay guusha ay maanta gaareen, waxaana uu sheegay in Soomaaliya uu u muuqdo mustaqbal ifaya. ugu dambeyn qaar ka mid ah ardayda maanta ka qalin jebiyay jaamacadda ummadda ayaa waxaa laga rabaa goolkaas uu leeyahay oo ahaa kii jaamacadda aad ku dhamayseen xaalado iyo duruufo adag dartood aad ku dhigteen kani waa ka duwan yahay, wuxuu ka duwan yahay waa mid mustaqbal ah. waxaa la rabaa inaad qorataan qorshe 5 sano ah ama 10 sano ah oo aad leedahay 5 sano kadib xaggee adduunka ka joogaan, xaggee nolosha ka taagna, horumar intee leeg ayaan samayn doonaa. waa inay ku muuqato oo vision aad leedahay, goolna aad leedahay. luqadda ajnabiga mar inaan ku hadalno iyada nafsigeeda aad leedahay consistency wax la yidhaahdo oo aadan marnaba dhinac uga leexan oo sida aad u bilowdo qorshahaaga inuu kugu dhammaado. waa xaqiiqa 10 sano ka bacdi qorshaha dhiganayso lamid ma tihid dalalka jiilkii ka horreeyey u shaqeeyeen. nasiib darro waxaan leeyahay jiilkii idinka horreeyey idinma shaqaynin. wax meel idin yaalla oo raggii hore ee u soo tiira tacabeeleen ee u soo halgameen inaad dhaxalkeeda qaataan wax badan ma aha.